السلام عليكم waxaad ku soo dhawaataan qas'aad iyo aad u xiiso badan oo idin soo turjumay tiimkii Mooguro official fadlan subscribe noo saar furana gambalelka si ay kuu soo dhacaan muuqaalada aan soo gelino السلام عليكم قريو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين وسودو شلي وحا إقدمتي قريو سعدي waan ogaaday waad murugootay in badan adiga waxaan sugayay dhalmadeeda ilaa ay ka dhasho iyo balantii aan kuula galay ahayd inaan kuu soo celiyay bishii la soo dhaafay waan u maleynayay inay taasi dhacayso dhimashadeeda kadib ma awoodin inaan oofiyo balanka laakiin goormaad awoodaa inaad ii soo celiso lacagta bil kadib intaan wax kaaga helaya iga sug laakiin inta aad iga qaaday in ka badan ayaan kaa doonayaa aniga 100 diinaar guri aaday u badan tahay ma awoodo lacagta inta leeg inaan soo celiyay aad ay u badan tahay guri haddii aad taas sameynin xabsi ayaan kugu xireeyaa ugu Xuseenow xasbunallahu wa ni'mal wakiil qoryaa maxaa dhahaysaa adiga wax ma dhahayo aniga laakiin waxaan dhahayaa assalaamu calaykum wa calaykum assalaam السلام عليكم قريو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب لك وسودو waxaa jiraday aabbahay jiro daran waxaana u qaadnay isbitaalka dhakhaatiirta waxay dhaheen waa in ninkan loo fidiyaa gargaar degdega lakiyow adiga waad murugootay miyaa hey maxaa u joojiseen shaqada waryaa mid idinka mid lacag ma siinaayo ilaa oo iga dhameeya shaqadeeda hanay u kalifina inaan idin diido mushaarka lakiyow miyaad u baahan tahay inaan aniga ku saacido maanta waxaan doonayaa $500 goormaad ii soo celinaya lakiyow aniga deenteyda sanad kadib inshaa allah markay wax ii gadmaan ogow waxaan doonayaa aniga inaa $200 igu maxaa darto dhahday waxaan dhahay waxaa adiga aa maqashay aniga dariskaaga ayaan ahay maxaad waxaasi uu sameynaya soo miyaadan ogeyn dariskan uu xaq kugu leeyahay ilaahay u mahad celi haddii aad heshay lacagta haddii kale haddii aan kuu diido lacagta maxaad sameynay haddana uu ku saaran yahay waalidkaaga sariirta hadal adiga waalidkay allah ayaa caafinaya waxba kaama baahni hadalkaygu ugu dambeeyey waxaan kaawaaninayaa ribada iyo dhaqamada ah xunxun aa ku socotid fakir si fiican u fikri haddii aad doonaysid maal aniga waxaan ahay mid diyaarsan ilaahay ayaan ka magan galay inaan ribo qaato haddaba adigay kuu taalaa haye shaqaalihiina shaqada qabsada waryaa haye soo socda soo dhowow saaxiibkaygioo muddo dheer ma aanan beeran wax beerashaa anaga haa isaamax guriyow aniga waxaan ahaa sannadihii lasoo dhaafay mid in badan safray taas oo iga reebtay inaan ku soo booqdo laakiin ii waran sannadahan lasoo dhaafay maxaa kugu dhacay adiga waxaad ahayd maalqabeennada magaalada kugu waaweyn waxaa laga yaabaa inay shaqada kugu badatay ee aan isku weynay fursad aan ku kulanno haa waa inaan ilaaliyo maalkayga maxaa yeelay waxaan ka mid ah maalqabeennada deegaanka taas oo u keeni karta maalkayga kor u kac hantiyadeed haabo ibraahim adeerkiisa ayaa albaabka taagan waxaad ku dhahdaa wiilkaygiiyow soo dhowow adeerkaygiyo soo dhowow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow adeerka ibraahiimow maalmahan aniga kumaana arkine kan waa cabdulaahi abtigiis ibraahim adeerkiis waa saaxiibkii aabbihiis allah u naxariistee soo dhowow adeerow waan dhawacay wiilkaygiiyo waxaan idinka jaray sheekadiina dheereed waxaan u imaaday arrin kaasoo ah haye soo dhowow adeerow waad ogtahay inuu ilaahay weli u arsaaqin waxaana la noolahay xaaskayga taas oo jirneed oo aan ku wada nooleen guri yar maalin maalmaha ka mid ah waxaana ka helnay gurigeena gadaashiis xoogaa lacag ah waxaana ka cabsanay inuu guriga noogu soo dumo annaga
sidaas darteed waxaan rabaa inaan guri dib u dhiso. marka aniga sidee kugu saacidaa adiga? Waxaan doonayaa inaad i siiso $500 hormaad ii soo celinahee sanad kadib inshaa allah. sanad kadib laakiin aniga waxaan kaa rabaa adiga 7,000. 7,000 miyaad doonaysaa inaa aniga riba ii qaado? sidee u doonaysaa adeerow inaa adiga kaligaa faa'iido? adiga waad faa'iidaysaa, anigana sidoo kale waan faa'iidayaa. maya guriyow, waan kaa kaaftoomaa aniga, allahna waa qani. waxaan ka magan galay inaan ribadaada qaato. laa xawla walaa quwwata illaa billaah. maxaad samaysay guriyow adiga? wax ma samaynin aniga, waxaan doonayay inaa aniga asiga saacido mooye. miyaadan ogeyn asiya aad ka dalabtay inuu riba kaa qaato? maxaa lagu magacaabaa ribadaas? waxaa lagu magacaabaa ribadaas in maal leeska qaato leeskana faa'iido. taasi faa'iido maahan, laakiin taasi waxaa waaya in lees dhaco. miyaadan ogeyn inuu ilaahay yidhi aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yataqabadahu ashaydaanu min almas. aniga waxa aan sameeyey ganacsi lee waaye, maxaa oo kale aan sameeyey aniga ma xalaalay kari mana xaaraantimay kari, laakiin waxaa dhahay allah subxaanahu watacaala ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. xuseeno adiga isdeji, nafsada ayaa ka hadashay. waxaad doonaysaa inaa lacagtii sidaas ku bixiyaan tidee eena dadka faa'iidaan, anigana aan faa'iidin hal shay. yaa ku dhahay fuqaradaa laga faa'iidaa, adigana wax ma helaysid, laakiin waxaad ku saacidaysaa adduunyada, adigana allah ayaa kugu saacidaya aakhirada. geyso qoolka alle. yamxaqu allaahu aribaa wayarbu sadaqaat wallaahu laa yuxibu kulla kafaarin asiim. runtaa waxay tahay allah wuxuu ku siyaadinayaa maalka, laakiin ribada alla wuxuu ka halaagayaa maalka. aniga dadka haddaan ribo ka qaato oo aan sidaan ku dhintasewa. wuxuu dhahay ganacsiga hortiisa ahaw mid ganacsigiisa oo xaq yahay, hana ahaanin mid ribada iyo dadka dhiigooda caba. miyaad doonaysaa inaan aniga noqdo mid faqiir ah? aniga ma doonaya inaan ku celiyo faqiirtinimo, laakiin waxaan doonayaa wax kaa qarsoon inaan ku tuso. laakiin dagaal waxaa dolu jirtaa alla iyo rasuulkiisa. dagaal allii rasuulkiis haa, alla hadalkiisa maqal. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah wadaruu maa baqiya min arribaa in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun. ugu filan waan ogaaday, miyaad igu maatay inay beerashadii hoos u dhacdo mise inay kor u qaadmato? ilaahay ayaa kuu qadaraya inuu dalgaada kor u qaadmo xilligan, laakiin waxaad ogaataa inaad kulunsatay maal badan oo riba ah. maqal qowlka nabiga sala allahu calayhi wasalam maa axadun akthara min arribaa ilaa kaana caaqibatu amrihi ilaa khillah. maqal qowlka nabiga sala allahu calayhi wasalam lacana allahu akala ribaa wa munkilow wa shaahidayhi wa kaatibeyh. allahu akbar, allahu akbar. waxaan aadayaa salaada cishaa, waxaan alla ka baryayaa inuu ku soo hanuuniyo adiga. waxaad ka fikirtaa hadalladii aad ku soo dhahay oo dhan. nabadbaadiya waxaa gubtay guriga gurey, wuxuu gubtay gubasho daran aan weligeeda la arkin. waxaad ka dalataa inaan nabadbaadiyaan, aniga ma awoodna inaan debin debkaan. adrihi biyaa ciyow keena. hay nasaacida biyaha soo dhaqsiya walaalo. haye dhalinyaroy.
ha oonin gurayow waxaan waxay ku socdaan qadartii alle. xuseenow wax walbay dhammaadeen. aniga waxaan ku dhahayay ma awoodid dadaal xagga alle, waxaana laga yaabaa inuu ilaahay kaa daahiriyey ribada ilaa aad la kulanta alle maalinta yowmal qiyaama adigoo daahir ah. wuxuuna dhahay allah subxaanahu watacaala wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allahi uma tawafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. haa waxaan ahaa mid dhunsan, waxaan ahaa mid daadiya dadka masaakiinta tuuladooda degan dhiigooda, kuwaas oo iga badbaadiyey inaan geeriyoodo. ribadu waxay kaa daahirinaysaa shay walba xumaana, dadka tuulada deganna way ku jeclaanayaan. waxaan markhaati kacayaa qof walboo tuulada degan inaan celi doono maalkiis, xataa maalkayga qaybta ugu weyn waxaan ka dhigayaa sadaqo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi fain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wa an tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun. ilaahow ii dembi dhaaf. idinkii ilaahay toobadaada waa la aqbalay, waxaadna noqotay qof wanaagsan. khayr allah ku siiyo xuseenow. adigana sidoo kale khayr ilaaha ku siiyo walaalkeeyow.